والله وياه قبيل هذا هين مركا شيغتو دبكان اي ليداhay ninkan qabiil uu saxeen uu sheegtay dibkaana soo gaaray in la kufsaday la xoogay muuqaal laga duubay waxaas dhan waxa loo sameeyay aana qabiil asagana qabiilkaas uu dhal baaris dheeran sameeyay meesha ku dhashay meesha ku barbaari qoyskiis inta ku koobay magaciisa daxan kulli ay sheegi doona Axmed waxa waaye muuqaalkan wuxuu gaari doonaa ninkan cidiisa oo hadda aan sheegi doono kay waa joogan South Sudan ganacsiga ku leeyihiin Nairobi ilaa iyo Gaarisa meel kasta ganacsiga ku leeyihiin Muqdisho ganacsiga Yurub adduunka waa buuxan ninkan maanta garab idin kaga baahan yahay qof walba Soomaali qabiilka tu dhal ninkan cadaalad idin kaga baahan yahay dhalinyaradii waxay ka xaqiijinaa hal waa la qabtay rag kale waa la daba joogaa taqaanaa waana xawliyaan waa ninka dhib u geystay waa confirm boqolkiiba laakiin ninkan ogaaday ma walaalayaal ninkan waa ninkii aan ka soo hadlay ogtiin Soomaalida inay wada daawatay meel walbana la wareejinayo ninkan yaa waa ninkan magaciisa waxa la Axmed Abdi Geedi Faarax aldaa waa Soomaali wuxuu ka yahay taqaanaa beesha sharafta iyo karaamad badan ma dhibaan wuxuu ka yahay beel la dhahayo reer cali waa la yaqaanaa waa niman taqaanaa dawladda Maxamed Saad Barre madax iyo ahaayeen niman taajiriin ahaayeen ilaa iyo kadibna haddana waxa weeye xildhibaanada baarlamaanka ay fadhiyaan waa niman laan dheeraad meel bannaan dega waaye reer cali waa la yaqaanaa ilaa South Sudan ilaa Kenya ganacsi ku leeyihiin wayna ku faanaan macnaha talkooda laan dheernimadooda ku faanaan laakiin ninkan walaalihiisa asaga la dhashay oo ilma-adeeradiisa qabiilkoodana way ku faanaan laakiin Axmed waxa waaye waa yar yahay reerkaas ugu yar waa idin faa'iido doonaa taqaanaa reerkan waa reerka macnaha keligood sheegtay ogaadeen inay yihiin macnaha qabiilka oo maqabalka inay sheegtaan horta waxa waaye ayagaa keenaya waa jufadan keliya waaye sababta u sheegaan waa idin sheegi doonaa Axmed walaalayaal wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho xaafadda Shibis ama degmada Shibis qof walba u yaqaano meesha ku barbaaray qoyskooda waxay ka kooban yihiin lix wiil iyo laba gabdhood siddeed qof ay ka kooban yihiin labada gabdhood waxaa la kala dhahaa Muna iyo Sacdiyo oo Axmed la dhalatay Sacdiyo waxa waaye shukulaatiin hooyadeed waaye macnaha hooyada shukulaatiin waaye shukulaatinana isku maadaama ay ayadoo yar aabeed macnaha uu habarta furay ayada kaligeed waaye macnaha shukulaatina waxa waaye ilmo kale ku aabi kooy lama dhalanin maamada Sacdiyo la dhahaa oo Axmed la dhalatay hadda waxay ka tahay Mombaaso شوكولاتين هويدد نين هندي قبو ilmo dhashay marka waxa ku hooye ilmo hindi mataqaana شوكولاتين laakiin kaligeed macna odaygana waa hawiye abgaal waaye qurbaan u jooga شوكولاتين marka environment-gan reerkan sida ogaadin u sheegteen ayadana maadaama hooyadad waxa way Axmed la dhashay oo ay شوكولاتين waxa soo korsatay Axmed hooyadiis macna ayada soo korsatay marka saas ay ogaadeen isaga sheeganaysi laakiin gabar laandheera oo hawiye abgaal waa ayadana شوكولاتين taas waa faanteen walaalayaal 2005 ay ka soo tageen macnaha dhaxdeedii magaalada Muqdisho reerkan waa lix wiil iyo laba gabdhood waay macnaha Axmedan uu reerka Axmed uu yaraanka Axmed waay taqaana waxay soo aadeen Kakuma sida dadka dibadda u soo aadayo qaxootiga u soo aadeen dibadda mataqaana waxa sheega Kakumada jooga siday Mareykanka meelaas rabay inay macnaha leema u soo baxo oo u suurtagal weysay Kakuma wax badan deganay Axmed meesha ku qaan gaaray oo ku weynaaday kadibna waxa waay mataqaana waxay soo aadeen mataqaana gaariso xogaa deganaayeen gabadha marka oo Sacdiyo walaasheed oo asaga la dhalato canab waxa guursadeen ogaadeen oo sarkaal guursaday oo gaarisa aad loo yaqaano oo cuuriyaan marka mataqaana waxa waaye gaarisadii xabaar joogan Axmed gaariso xabaar ku koray ogaadeenkaas u dhaxgalay marka saas ogaadeen isaga sheeganayeen ayaga kaligood macna marka saas marka asaga wuxuu ku soo aaday Nairobi walaalkiis ka weyn wuxuu joogaa laba wiil dibadda joogto midna Mareykanka jooga midna Canada walaalkiis ka weyn wuxuu joogaa Canada jooga magaceedu ma sheegayno ma fiicno laakiin Canada jooga waa la yaqaanaa walaalkiis kalena Mareykanka jooga labada kalena labana halna wuxuu joogaa Muqdisho labana waxay joogtaa Nairobi macnaha mid wuxuu joogaa Kakumo labana waxay joogtaa Nairobi saas waa macnaha laba oo dhinacan America jirto hal oo Muqdisho joogo hal oo Kakumo joogo iyo laba joogto mataqaana Nairobi oo Axmed uu ku jiro taas ma fahanteen lixda saas waay labada gabdhoodna waa Canab iyo Sacdiyo oo macnaha شوكولاتين hooyadad Sacdiyo waxay joogtaa Mombasa Canabna waxay joogtaa Gaariso oo maamaday la joogtaa oo Axmed iyo reerka hooyadood maamada kana algu qaba macnaha wiilkooda gabadhooda waxa qaba nin ogaadina mataqaana saasay maamada Gaariso u degan tahay qoyska walaal intaas ka kooban yahay Axmed dibkaana soo gaaray marka muuqaalka meel kasta waa in isku diraan beesha mataqaana reer maalin oo ma dhibaan Nairobi waa joogtiin meel kasta waa joogtiin waxa waaye raggii ninkan dibka u geystay hal qof la hayaa inta kalena waa lagu daba joogaa culiyahanna waxa waaye dhalinyaradaas dibka geystay culiyahan ma matalan aflagaadadii ogaadeenka dibka caayda laga dhaafo niman gaangistara oo kaazuul ah way jiraan oo dadka dhibaatay xitaa ogaadeen ka dhibaateeyaan culiyaanka ka dhasheen dhibaateeyaan cid kasta oo ogtahay marka kuwaas waxa ogaadeen ma matalaan culiyaan dad ganacsataa oo sharaf la waayo oo Nairobi joogo
oo mataqaana dulmiga nacib waa buuxaan kuwa xunna waa jiraan marka waxa waaye waxa meesha la yiraahdo culyaan ma jiraan waa rag u dhashay beesha culyaan sax waaye oo dhibaato u geystay kufsi iyo dil isugu daray ninka miskiinka walaalkeena oo aana qabiilaan u soo weeraray inuu mataqaana yahay mataqaana ogaadeen maqabul kullay ahaana ninka la soo weeraray saasa ninkan loo gaaday marka saanay ku xuntahay fiiri waxa waaye war قبيل كلام دير سمجرو قبيل إلهي سبحانه وتعالى جل جلاله أدونك أنا أورت waxa uu karaamada badan fiir bini'aadamku ilaahay ku karaamay adiga nin facaaga ama qabiil adiga kula mid ah oo san ku neefla ah waliga Allah sheegan adiga ka ku dhalatay fiir nasabnimada maxaa way aabaha way hadda Ahmed nasabnimadiisu waxa way aabiis asaga dhal oo la dhaho Abdi Faarax geedi aabiis waa Ahmed dhalay way ninkaas askala dhigiisa nasabnimadiisa kale maanta waxa ooynayo baroor diiqanayo waxa way ciduu ka dhashay reer xaalin iyo mataqaana walaalihiis oo qaarkood qurbaa joogo walaalihiis qaarkood hooyadiis maanta gaariso ku ooynayso habaryaashiisi oo qaarkood muqdisho joogo mataqaana qaar Yurub joogo iyo abtiyaashiisa adeeradiisa maanta waa buuxan kuwa maanta ooynaya markay muuqaalkiis arkeen ayaga maanta baroor dilaa ayaga maanta ooynay marka adoo Soomaaliya muwaadin waxa laga rabaa qabiil kala duwan waxa laga rabaa ninka inaad garab siiso aflagaadada ka dhaafa ayada ka dhaafa ninka dhibaa soo gaaray raggaas waa in cadaalad helaan waa in loo kaco walaalkeen oo cadaalad u helaan قبيل كلام دير سمجرو قبيل كفي عنا مجرو كاد كدلة آباء كدلة نفس المدر وشجع تاسوا آباء ديجيسات هذه وإنها كفانتا مركز غير عالم ميل بيجوان باش مدبان باقان وحضرا إن ويلكن وقعان الحق وهاي ستان ويلكن وإنه عدالة دكاس وإن له حكومة ويلكن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته